Noocyada kalluunka sumaysan ee ku nool dunida way ka badan yihiin 100 nooc oo kala duwan. Haddaba maxaad ka taqaan kalluunka sumaysan ee laga cuno dalka Japan? Ugu horeyn magaciisa aan idin baro, magaca kalluunkan sumaysan ee lagu iibiyo Japan waxaa loo yaqaanaa fugu. Fugu waxaa lagu iibiyaa suuqyada Tokyo ee dalka Japan. Fugu wuxuu ku nool yahay biyaha Japan. Kalluunkan ayaa gudaha Japan laga cunaa oo qofna kama baqdo cunistiisa. Kalluunkan sumaysan qof waliba looma ogolo inuu jarjaro, oo waxa uu u baahan yahay qof xirfad u leh jaridiisa si taxadar lehna kaga saari karta sunta ku jirta fugu. Marka aad gacantaada ku qabato fugu, iskiisa ayuu isku buufinayaa. Maqaarka iyo dhammaan caloosha sida beerka, ugxanta waa sun halis badan leh, balse hilibkiisa ma ahan mid sumaysan. Hilibka fugu waxaa loo jarjaraa si khafiif ama busketi, waxaana la cunaa asagoo ceeriin ah. Maqaarka iyo caloosha si taxadar leh ayaa looga saaraa malayga si aysan u wasakhayn hilibka. Sababtoo ah maqaarka iyo caloosha kalluunka waa sun ku dili karta. Sidaa awgeed maqaayadaha iibiya kalluunkan sunta ah aad bay ugu taxadaraan si aysan u waxyeelayn qof naftii. Sida horey aan u soo sheegay, noocyada kalluunka sunta ah way ka badan yihiin 100 nooc oo kala duwan, laakiin 22 nooc oo kala duwan ayay dowladda Japan u ogolaatay in laga isticmaalo maqaayadaha. Kalluunka fugu waa laga ixtiraamaa Japan, waana mid aad qaali u ah. Aad bayna u jecel yihiin dadka u dhashay Japan. Wuxuuna halka kiiloogaram ee fugu qiimihiisu gaara lacag dhan $200 ama ka badan, halka halkii saxan ee fugu uu ku kacayo lacag dhan $20 ilaa $60. Jabaanku waxay cunaan 10,000 oo tan oo kalluunkan sanad kasta. Dowladda Japan ayaa si adag u hubisa qofka tababarka u leh diyaarin karana fugu. Cunkarayaasha waxay u baahan yihiin inay galaan imtixaan ballaaran ka hor inta aysan bilaabin ka ganacsiga malaygan. Sababta fugu ay u jecel yihiin dadka Jabaaniiska ayaa ah inuu leeyahay dhadhan aad u macaan, wax shaki ama cabsina aysan ka qabin maadaama ay diyaariyeen dad ku takhasusay hawshan. Cunida malaygan fugu waxaa sanad kasta u dhinta dad tiradooda gaaraya 6 qofood. Cunkarayaasha ku takhasusay diyaarinta kalluunka fugu ayay dowladda Japan siisaa license ama shati ay hawshan ku qabtaan, oo qof aan shati haysan looma ogola ka ganacsiga fugu. Lacalla haddii uusan diyaarin qof ku takhasusay jarjaridda malayga fugu oo aan sunta ku jirta laga bixin lana cuno, maxaa dhici kara? Muddo 10 ilaa 45 daqiiqo gudihiis ayaad waxaad dareemaysaa calaamado ah lalabo, mantag, kabaabyo, kadibna miyir beel, neefsashada oo kuga adkaata. Waxaadna haysataa in ka yar 60 daqiiqo si aad u hesho daaweynta neefsashada, taasoo ah rajada keliya ee aad kaga badbaadi karto saamaynta suntan xoogga leh. Balse muddo 60 daqiiqo gudihiis haddii aad heli weyso daryeel caafimaad oo degdeg ah, halkaa ayaa ku naf bixi doontaa. Mandhicirada, ugxanta iyo beerka fugu waxaa ku jira sun loo yaqaan tetrodotoxin, taasoo 1200 jeer ka wax dilid badan sunta loo yaqaan cyanide.